Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Daawadayaal kusoo dhawaada dareerayaasha ugu qaalisan dunida badnaha ama dibqallooca. Dibqallooca waxaa loo yaqaanaa in ay yihiin cayayaan aad u sun ah oo badanaa laga helo meelaha lamadegaanka ah. Waxaa jira 200 nooc oo dibqallooc ah, mid walibana waxa uu leeyahay nooc ka mid ah sunta ugu halista badan dunida. Halista sunta waa ay ku kala duwan yihiin oo mid waliba waxa uu leeyahay sun u khaas ah oo uga duwan yahay midka kale. Dibqallooca ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah noocyada dareeraha ugu qaalisan adduunka, iyadoo 1 litir oo sun ah lagu qiyaasay $10,000 in lagu kala iibsado daafaha dunida. Sababta qiimaha sare ee sunta dibqallooca. Sicir bararka sare ee sunta dibqallooca waxay sabab u tahay halista dadka sunta ururiya ay kala kulmaan qaniinyada dibqallooca, taas oo laga yaabo in ay naftooda halis geliso. Sidaa darteed, waxaa jira gabaabsi, dabar go' iyo tiro yaraan ku imaanaysa kuwa sunta ururiya oo leh qadar yar oo la ururin karo. Qaababka loo adeegsado sunta dibqallooca. Sunta dibqallooca waxaa loo isticmaalaa in lagu dhaqaajiyo nidaamka difaaca jirka, sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in lagu daweeyo cudurro badan sida sclerosis multiple. Dareeraha GHB. Qiimaha 1 litir ee maaddadan waa $600, waana walax laga soo saaro gudaha maskaxda aadanaha, laakiin waa wax aad u yar. Maaddadan waxay kaalin muhiim ah ka qaadataa habaynta dhaqdhaqaaqa jirka ee maalinlaha ah, sidoo kale nidaaminta hurdada. Nasiib darro, maaddadan waxaa aad u isticmaala ugana faa'iideysta gaangiska ama maafiyada, waxayna u adeegsadaan in ay ku suuxiyaan dadka si ay u afduubtaan ama u xirtaan. Sidoo kale, cabtooyada iyo kuwa balwadda leh ayaa iyaguna u adeegsada xadgudubyada, dhaca iyo boobka. Isticmaalka dareeraha GHB. Inta badan warshaduhu waxay u soo saaraan in lagula tacaalo suuxdinta, daaweynta balwadda, iyo cudurrada neerfaha qaarkood. Dareeraha mercury-ga. Mercury-gu waa curiye dhif ah oo aan inta badan la helin. Waxaa laga helaa tiro aad u yar oo ku jirta qolofta hoose ee dhulka, sidaa darteed waa qaali, maadaama litir mercury-ga lagu qiyaasay $900. Aad bay sun u tahay, laakiin waxay leedahay adeegsiyo caafimaad maadaama heerkulbeegga ka samaysan yahay. Waxaa kale oo loo isticmaalaa soo saaridda furayaasha korontada iyo aaladaha cabbirka cadaadiska dhiigga. Dhiigga laga soo saaro qoobabka fardaha. Dhiigga casaan-fardeedka waxaa ku jira hemocyanin oo u dhiganta hemoglobinta dhiigga dadka, taas oo ka kooban bir aad u badan, taasoo dhiigga siinaysa midabka guduudan ama cas, halka hemocyanin ay ku jirto nuxaas, taas oo ka dhigaysa midabka dhiigga mid buluug ah. Dhowr warshadood oo dhaqameed ayaa loo aasaasay si ay uga ilaaliyaan dabar goynta, iyagoo isla markaasna ka faa'iideysanaya sifooyinka dhifka ah ee dhiiggaas buluugga ah. Sababta qiimaha sare ee dhiigga casaan-fardoodka. Dhiigga casaan-fardoodka waa mid aad u qaali ah maadaama qiimaha litirkiisu lagu qiyaasay $16,000. Sababta sicirkeedu u sarreeyo ayaa ah in ay ku jirto maaddooyin dhif ah oo ka hortaga bakteeriyada. Maaddooyinkan waxaa lagu tixgeliyaa kuwa ugu xooggan noocyada kala duwan ee tallaalada iyo kuwa ugu dhaqsaha badan si looga gaaro natiijooyin wax ku ool ah. Dareeraha LSD. LSD waxaa loo tixgeliyaa nooca ugu halista badan ee daawada hallucinogenic, sidaa darteed waa laga mamnuucay inta badan wadamada adduunka, waxayna u horseedaa noocyo halis ah oo ah in waxyeeleyso aragga iyo maqaarka. Daawadan ayaa la alifay 1938, waxaana saameynteeda la ogaaday kadib markii ninkii hindisay Albert Hofmann uu faraha leefay kadib uu diyaariyay walaxda, una u kuurgalay saameynta uu ku yeeshay maskaxdiisa. Mid ka mid ah natiijooyinka isticmaalka daawadan waa welwelka. Qaar ka mid ah kuwa isticmaala daroogadan waxay tusisaa in ay awood u leeyihiin inay duulaan iyagoo iska tuura meelaha sare iyo saqafyada. Qaarkood waxay kaloo iska dhigaan in ay yihiin dad indheer-garad ah, awoodna u leh in ay xalliyaan dhammaan dhibaatooyinka. Waxa kale oo ay sameeyaan falal laga yaabo inay naftooda ku waayaan. Sunta maska kobraha. Kobruhu wuxuu ku nool yahay Hindiya iyo Koonfurta Aasiya, dhererkiisuna qiyaastii waa 4.5 mitir. Qiimaha 1 litir oo suntiisa ahna waa $40,000. Dhiigga dadka. Qiimaha 1 litir ee dhiigga aadanaha waa $400. Dhiiggu waa halbowlaha nolosha aadamaha. Wuxuu dadka siiyaa cunto nadiif ah, wuxuuna jirka ka nadiifiyaa wasakhda, qashinka iyo sunta, wuxuuna qabtaa howlo badan oo muhiim ah, xasaasina u ah jirka. Xarumaha dhiig bixinta ayaa laga furay adduunka oo dhan, inkasta oo deeq-bixiyayaashu intooda badan aan lacag laga siinin deeqdooda dhiigga. Si kastaba ha ahaatee, sii haynta dhiigga muddo dheer waxay ku kacaysaa lacag aad u badan,
sida awgeedna waa sababta qiimaha dhiigga kor u qaaday khadka madbacadaha. Marmarka qaar qiimaha halka liitar oo khad ah waxa ay gaartaa ku dhowaad $720. Cirbadda insulin. Insulinku waa hormoon aad muhiim ugu ah bini'aadamka, waxaana qariya qanaca si uu u beddelo kaarbohaydraytka uu u cuno una beddelo sonkor loo baahan yahay si uu jidhka u siiyo tamar ku fuliyo hawlaheeda iyo hawlaha nolosha. Haddii ay dhacdo dheelitirnaan la'aanta heerarka sonkorta dhiigga, tan waxaa lagu buuxiyaa duritaanka insulinta oo noocyadeeda iyo qiimahoodu kala duwan yihiin. Haddaba shirkadaha soo saara, marka la eego muhiimadda ay leedahay duritaanka insulinta cirbadda ah, dadka sonkorowga qaba qiimaheedu mar walba waa qaali. Sidaa darteed, liitar insulin ah ayaa inta badan ku kacaya $4,000 halkii liitar. Intaa ayay ku eg tahay barnaamijkeena maanta. Haddii aad ila socotay daawade, waad ku mahadsan tahay aad ka heshay. Like saar, siina share garee asxaabtaada, lana wadaag. Haddii aad nagu cusub tahay